xafladan ay isugu yimaadeen madaxda jaaliyadaha aqoon-yahanada ganacsatada iyo haweenka waxgaradka ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si buuxda waxa loogu taageeray maamulka laga dhisay gobolada dhexe ee Soomaaliya ee Galmudug State. xafladan oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay oo soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ee ka soo jeeda gobolada dhexe ayaa waxa laga dareemayay sida ay ugu faraxsan yihiin qaabka wax looga dhisay gobolada dhexe ee Soomaaliya. waxayna hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed oo loo doortay inuu hogaamiyo maamulka Galmudug State ee Soomaaliya. madaxda safaaradda Soomaalida ganacsatada iyo waxgaradkii ka soo qayb galay ayaa si buuxda u ayiday maamulkaasi laga dhisay gobolada Galgaduud iyo Mudug ee la isku yiraahdo Galmudug State. dadkii goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah nabadoon Shariif Maxamuud Wehliye oo sharaxaad buuxda ka bixiyay qaabkii ay wax uga dhaceen magaalada Cadaado oo lagu doortay madaxweynaha hogaamiya maamulkaasi. gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud waxaa ka dhashay maamulkii aad inta badan wada daawaneyseen iyo doorashadii iyo arrintiisa aad arkaydeen ay u dhaceen ay u dhacday macnaha arrintii dhacday oo arkayseen baa ka dhacday wixii dhacay baa dhacay arrintaas haddaan wax yar idinkaga taabto muddo laga joogo 10 bilood baa dowladda Soomaaliyeed guddi u magacawday in arrintaas labada gobol maamul laga dhiso oo maamul xalaal oo si doorashadiisu ay xalaal tahay ummaddu u wada jeedo oo meesha ka soo baxay. sidoo kale hambalyada loo diray madaxweynaha Galmudug State ee maamulkaasi waxaa ka mid ahaa xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ANC. gudoomiyaha xaafadda Soomaalida ee ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Mefe Jerry Mosesi Professor Cigaal ayaa sidoo kale ku biiriyay taageerada uu hayo maamulada laga dhisayo Soomaaliya. dareenka dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu taageerayay maamulka Galmudug State ayaa waxaa mar qura soo jiitay gabar aad u da'yareed oo ka jeedisay khudbad muhiim ahayd oo taabanaysay dhammaan Soomaalida iyo gaar ahaan maamulka Galmudug State. Aniso Nuur Abshir I hope the media will translate my speech into Somali language, as my speech is a very serious and important matter which concerns the children of Galmudug and all of Somalia. I hereby take pleasure in congratulating the newly elected Parliament and the President, namely Cabdikariin Xuseen Guuleed. Mamisara Sulub Soomaali oo ka mid ahayd haweenkii ka qayb galay munaasabada lagu taageerayay maamulkaasi ayaa sidoo kale maamulada Soomaaliya baaq u dirtay isla markaasna sheegtay inay ku tartamaan dhismaha iyo horumarinta goboladooda. halkan waxaan aad uga salaamayaa madaxweynaha Galmudug Cabdikariin noqo midkii anfaca dalkiisa iyo diinkiisa iyo dadkiisaba noqo midkii isu soo jiida dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed noqo midkii maamulkiisa loo doortay ee sharafta badan Galmudug. Idris Abdi Hassan TV caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika.